dhegaystayaal, dameeruhu waxay ka mid yihiin xoolaha caanalayda aajaadkooda gammaanka loo yaqaan, waxayna isku bah yihiin oo ay magac iyo muuqaalba wadaagaan fardaha, farowga iyo baqlaha. sida awrta dameerku uma xoog badna, haddana qofkii ay dani baddaa wuu rartaa wuuna dhaansadaa. sida fardaha uma dheereeyo, haddana waa la fuulaa. haddii ay socod yareeyaan, baqlaha ayaa odayada loo doonaa, iyaga ayaa u wanaagsan. haddiise loo waayo, dameerku ugama daro. way ku sodcaadaan, maalinta geedina haba gaabiye reeraha ayay ku raacaan. aad ayuu dameerku dhulka soomaalida ugu badan yahay, hase ahaatee sida xoolaha kale looma dhaqaaleeyo. magaalooyinka iyo miyigaba isku si ayuu u joogaa, looma saroona, rarka culusna loogama turo. si xun baa loo dilaa, dadka adeegsadaana jiilallada muggay tahay baad ku filan ma siiyaan. intaa ka sokow, dameerka waa la yeesaa. soomaalida keliyana ma ahee, af walba ayuu ku caayan yahay. waxaa la qabaa xoolaha oo idil inuu ugu doqonsan yahay, xumaan kasta oo lagula kacana uusan ka dhiidhiyin. awrtu haddii la uleeyo way cabaadaa, kolkolka qaarkoodna qofka xanuujiya way qaniintaa, ama intay dabarka goyso ayay ka baxsataa. dameerkuse wax la yeelay kama ashtakoodo, kama xafiif qaato, lagamana yaabo ruuxa garaacaya intuu dib ugu soo jeesto in xanuunka haya laga dareemo. sidaa darteed, dameer baa tahay qofkii lagu yidhaahdaa kama gam'o. dhinaca kale, tiro kastaba ha ka haystee, qofka dameeraha lihi inuu xoolo leeyahay soomaalidu uma taqaan. taa awgeedna kolba kii ku faana hanti uu beri lahaan jiray, si aan maantaa waxbaba ka haynin ayay ugu mahmaahaan. aabbahay baa farda lahaan jiray, anaa dameera leh yaa dhaanta. aan haddaba dameerka iyo sida loo yeeso ku tusaaleeyo meelisye ku jira masafo dheer oo guubaaba ah, sayid maxamed cabdilla xasanna uu tiriyey. waa masafadii dhextaalkeedu ahaa doodna waxaan u leeyahay, ee inteeda badan uu ku daraabayey waayeelkii gumaysi raaca ahaa, waayeelkii shisheeyaha u jilicsanaa, sokeeyahana geesbiciidka u lahaa, intii hungurigu jiitay ee gobonnimadii isaga malabka loogu daadshay iyaga laga indhasaabay. tuducyada masafada midkood ayuu kula hadlay dumarka iyo carruurta soomaaliyeed, isaga oo dareensiinaya in gumaysiga laga iibsaday oo dadkii ka waaweynaa ay hooggooda ka talinayaan, isaguse uu dantooda ku hawshoon yahay, dabka uu shidaayana aan nololi uga sokayn. waayeelkaas uu dumarka iyo carruurta ku diraayo ayuu sayidku ku sheegayaa darxumada uu gumaysigu yeelsiiyey, cid kale iska daaye inaan xataa dameeruhuna yeeleen. markaas buu yidhi, doodna waxaan u leeyahay dumarkiiyo carruurtoo, dadkii idinka weynaa hadday idin dulleeyeen, dembi kama ay yaabine cuntay idinka doorteen, dameerkuna ma yeeleen halkay tale ku daysteen. duunyaa la dhaafsaday dugsigaad gelayseen, dab intay shideen bay dalaq idinku siiyeen, doox intay qodeen bay ciid idinku daadsheen, nin idiin damqanayaa idinkama dambeeyo, haddaydan digtoonaan daad ba idin qaadiye, naf dalkaaga doonaysa furaash looma daadshee, dabkan aan shidaayaa dawadiinna weeye, dariiqii rasuulkiyo dawga ha ka bayrina. mar kale ayuu sayidku dameerka ku xusay gabay isaga qudhiisuna guubaaba ahaa. ciidan daraawiisha ayaa inta laga ilhelay waxaa gumaaday wala ay col ahaayeen oo ka tirsan galbeedka soomaalida degta. 100 darwiish oo mid ka dhaca aan lahayn ayay dhegta dhiigga u dareen, oo si islaamnimo uma ay aasine meydkoodii ayay ku gureen afyaraadda ceelka la yidhaahdo oo hara doolood ka mid ah. dabadeedna sidii caadada u ahayd, daraawiish ayuu sayidku ku tirtirsiiyey inay duulaan qalqaalaan, cidda raggoodii ba'aa ku fashayna ay aarkooda ka doontaan. gabaygii uu maantaa tiriyey oo loo yaqaan daraawiishta saalixiye ah, qayb ka mid ah ayuu ku leeyahay, waynaga iska baraadla, waynaga wixiina la yeelay aan ka dhiidhiyeyne, isagaan waxba qoonsan oo isagaa xumaan kasta oo lagu falo aan ka digaygaxanne, ma dameer cida u raran baynu nahay. wuxuu yidhi, yay dani ka haysaa raggii doolla lagu laayey, nimankii daldalay waafir
sow loogu dudi maayo dudihii xirsi ahaa ma wa' loo danqanahaynin dakankii maqnaayaa lahaa sow la dayi maayo sow danabadeennii la dilay loo dubnixi maayo ma dameer la raray baynu nahay didiba sowmayno mar kalena isaga oo ina baraya xoog iyo socotoona inaan dameerku sinaba awrka ugu gaari karin waa kii sayidku lahaa dameer 2 boqlood lagu raray oo lagu boqolsiiyey bukuraha xun buu moodayaa buur inuu sidooe inaan bacadla awr lala simayn ba iyow sheega buu soomaalida qaarkeed intii ay reer magaalowday aragtidii dameerka laga haystay waxbaa iska beddelay gaadiid aan laga maarmi karin ayuu u noqday ceelka ayay biyaha kaga soo dhaansadeen qoryaha wax lagu karsadana duurka ayay kaga soo gurteen markaas baa reerka iskale meel aan ka fogayn inta lagu qoob xiray halkiisaas lagu dhaqaaleeyey caws ku filan loo soo dhigay hadduu xanuunsadana nimanka xoolaha sanceeya loogu keenay darwiishkii gabyaaga ahaa ee la odhan jiray ismaaciil mire ayaa 1940nadii wuxuu dareemay daryeelka ay dameeruhu reer magaalka ku qabaan iyo fardihii jeer lagu dhaadan jiray oo la dayacay dugaaggana aan laga soo xeraysanayn markaas buu xanaanada u soo korodhay dameerihii u quuri waayey fardihiina u calaacalay waxayba la noqotay taasi inay ka mid tahay astaamihii la sheegay qiyaamaha inay ka soo horraynayaan gabay la baxay adduun dabadii oo uu ku xusay dhaqamo soo dariyey oo geyiga ku cusbaa isaguna uu la yaabay ayuu tuduc ka mida wuxuu ku yidhi darmaanaha waraabaha digliyo loo dayacay haadda dameeraha la bari siinayo iyo diibtan xamar qaayib daa'imow maxaa xigi adduun dabadii weeyaane aan haddaba u soo daadego hawlaartii dameerka ee mahmaada noqotay sida xoolaha kaleba lagu yaqaan dameeruhu xilliyada roobka ayay qooqaan dhibcaha guga iyo dayrtu markay dhulka ku hooraan ayay orgoodaan waxaaba la sheegaa iyagu inay ugu horreeyaan wax u dhegtaaga dhawaaqa taranka ee eebbaweyne uu nafleyda ku abuuray ha yeeshee hawshaasi dameerka lab uma fududa isaga iyo dameertuna dhib badan bay isku qabaan goor uu biqle ka dhergay gafuurkii burburay cagihii murxeen xuurto uu la gorongolay qayraa ay ka dhammaatay ayuunbay wax uga suuroobaan sidaa darteed ayay soomaalidii hore waxay dameerka ku tilmaami jirtay nin xilihiisii lagu dhibay maalin maalmaha ka mid a ayaa haddaba dameer lab inta la su'aalay waxaa lagu yidhi heedhe dameerow dhimatay oo ma noolide waxaan oo dhib ah inaad u dul yeelato maxaa kuugu wacan adkaysi badnida markaas buu ku jawaabay waxa ay haysta ma moogiye yaan dameero fir go'in ba adkaysiga igu wacan dabadeedna waxay noqotay mahmaa uu ku kaftamo kolba qofkii ku foognaada hawl canaab leh oo aan isaga dheef degdega u lahayn ha yeeshee dad badan oo kale ay timaadada u aayi karaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga